agaasimaha guud ee waaxda kastamada Somaliland uu weeliyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada cashuuraha qaranka ayaa iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran ilaalinta iyo dardargelinta cashuuraha qaranka waxay saaka kormeer ku soo mareen tuulooyinka magaalo cad qalooc garbahaadley oo iyagu ku teedsan ama xad la wadaaga dalkaynu jaarkanahay Itoobiya iyagoo kuurgalayay dardargelinta dakhliga gabagabadii mas'uuliyiintan ayaa bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ku wargeliyay inay markasta la shaqeeyaan ciidanka ilaalada cashuuraha qaranka oo iyagu mar walba u taagan sidii wax kasta oo kootarban ay ula dagaalami lahaayeen gabagabadii waxa warbaahinta si wada jira ula hadlay kana warbixiye kormeerkan ay saaka ku soo mareen tuulooyinkaasi ku teedsan xadka ay Soomaaliland la wadaagtay Itoobiya agaasimaha guud ee waaxda kastamada Somaliland mudane Idris Xasan iyo taliyaha guud ee ciidanka ilaalada cashuuraha qaranka gaashaan la dhexe Cismaan Xaashi Daahir iyo gudoomiyaha degmada magaalo cad mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii anagoo wafti ballaaran oo ka socda immigration-ka turbatariyada iyo kastamada waxaan kormeer muddo ku joognay magaalada Wajaale oo kaasoo ahaa kubcinta dakhliga dhinaca laanta socdaalka iyo dhinac walba ololaha ama saaka waxaan soo maray magaalo cad ilaa Boorama imikana halkan jooga garbahaadley waa kaasi oo soconaya ilaa inta sanadkii ka hadhay kormeerka iyaga dakhli kordhintii uu soconaya dalka oo dhan uu wada gaaraya meel kasta oo aan isleenahay waxba ku baaqdayna waxaan ka qaban doonaa salaamina gudoomiyaha magaalo cad sida fiican ugu warbixiyay insha Allah dhamaantiin waxa loo baahan yahay in iska kaashano in sidaan kootarbanka wax uga qaban lahayn dalkeena ku baahsan ku soo galaya ama sharci darrada ninka muwaadinka cashuurta wixiisa ninaan kootarban ee ku baabiinaya inaan gacanta ku qabano in dhamaantiin aan iska qabsano oo wixii kootarban gacan iska siino wixii information aan kala helo oo ninka kasta oo muwaadin oo Somaliland oo helo kootarban ku soo galaya dalka oo sheego haday booyatahay haday shitaal tahay haday maxaan ku leeyahay jaatay halka waxba maraya ka kale walaalkii soo cashuurta uu heeliyo marka insha Allah aan wadan doonaa kormeerkayaga meel kastana waan tagi doonaa kormeerka uu nagu hogaaminayo agaasimaha waxda kastamadu ilaa maalmaana aan u joognay Wajaale dardargelinta dakhliga iyo kuurgalista marka waxaan leeyahay aad baad mahadsantahay gudoomiye waxaan ka ballan qaaday inaan kula shaqeyno adna inaad nala shaqeyso ciidanka halkan garbahaarayna waxaan leenahay waxaad aragtaan ciidanka booliska ilaalinta cashuuriga waa mid maanta inaan gacan isku siino wixii aad aragtaan aad qabataan aad noo soo sheegtaan aad iyo aad baad mahadsantahay garbahaadley waxa weeyaan waxay dhibaato ee maxadan degmada oo ka yimaada xagga Itoobiya ama xaggan Somaliland wax dhibaato oo ka jira ma jiraan waayo aan hadii jir askar baa noo joogta cashuur qaada noo jooga wixii dhibaato oo aan kala dagaalanaa xagga magaalo cadna waan kala dagaalanaa magaalo qalooc intaba wax alla wax dhibaato oo maxadan loo soo mara oo maxadan xagga kontrabaan ugu yimaada ma jiro Khadar Abdi Abdullahi telefishinka caalamiga Som News TV magaalada Togwajaale